بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: أبرز الشعائر التعبدية في رمضان. fasalkaani waxa uu fasal yahay ama uu kaga hadlaa shacaa'irta yacnii ugu muuqasha ilaahay lagu caabudo kuwa ugu muuqashada badan ramadaan dhexdiisa. yacnii shacaa'irta waxyaabaha calaamaadka ama cibaadaadka ilaahay lagu caabudayo bishan ramadaan ee astaanta u ah kuwa ugu muuqashada badan wax ka mida ayuu uga hadlayaa fasalkan. alxadiidu alأwal, xadiidka hore fii qiyaami ramadaan, ramadaan qiyaamkiisa ayuu ku saabsan yahay. waxyaabaha marka ramadaanka dhexdiisa shacaa'irta waaweyne ilaahay loogu dhowaado lagu caabudo waxaa ka mida qiyaam ayuu leeyahay. qiyaamkaasuu rabaa marka inuu ka sheekeeyo iyo wixii kale ee cibaadaad ramadaanka aada loo sunneeyo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبو هريرة wuxuu leeyahay nebigaan maqlay oo dhahaayo: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان qofkii رمضان istaago إيمانا rumayn uu ilaahay rumaynayo, ikhlaas yacnii uu istaago, واxtisaaban ajar tirsi iyadoo yacnii uu ajarka ku xisaabtamaayo, ajrigana uu rumaysan yahay kuna xisaabtamaayo, gufira lahu waa loo dhaafay maa taqadama min denbihi, dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafay. rawaahu albukhaariyu wa muslim. dembigaasna shuruudda ku xihan horaan u sheegnay, ayb oo laba intayba ku caddahay oo iimaanan waxtisaaban. midna waxay ahayd ida ijtunibat ilkabaa'ir. dabcan marka hadday ramadaankii iyo alcumratu ila alcumrati waramadaanu ilaa ramadaan waljumcatu ila aljumca kafaaraatu lima baynahuna ida ijtunibat ilkabaa'ir, haddii kabaa'irta laga dheeraado. ayb alxadiidu daliilu calaa fadli qiyaami ramadaan. waxau yidhi xadiidku wuxuu daliil u yahay ama uu tusayaaba ramadaan qiyaamkiisa fadliga uu leeyahay, wa annahu min asbaabi makfirati اdunuub, iyo qiyaamkaasi inuu yahay asbaabta dunuubta lagu dhaafo. waman salla taraawiixa, taraawiixda qofkii tukado kamaa yenbagii sida habboon u tukado, faqad qaama ramadaan, ramadaan waa istaagay ninkaasi. ninkii taraawiixda tukado sida ay tahay u tukado oo aadaabteedii iyo waxeedii o dhan ilaaliyo, qofkaasi yacnii ramadaan waa istaagay oo xadiidkan waa ku sifoobay. ayb wاlmagfiratu mashruuطatun, dembi dhaafkana waa mid lagu xiray biqowlihi, waxaa lagu xiray nebiga qowlkiisa, iimaanan waxtisaaban yaa loogu xiray. wa macnaa iimaananna ay annahu xaala qiyaamihi, kolka uu istaagayo, mu'minan billaahi weeyaan, mid ilaahay rumaysan tacaalaa, wa birasuulihi rumaysan sala اllahu calayhi wasalam, wa musadiqan rumaynayo biwacdi illaahi, ilaahay ballanqaadkiisana mid rumaysan uu yahay, wa bifadli اlqiyaami, qiyaamka fadligiisana rumaysan, wa cadiimi ajrihi, ajrigiisa weynaantiisa rumaysan cinda allahi tacaala. waxtisaaban ay muxtasiban, mid ajar tirsanaayo oo ajar xisaabsanaayo, muxtasiban xaal uu yahay yacnii mid xisaabsanayo athawaaba, hawaabka cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa ka xisaabsanaayo, laa biqasdin aaqara, qasad kale maya, min riyaa'in istutus ah iyo wanaxwihi wixii lamid ah. yacnii labadan shardi buu kuu sharxaa, iimaanan waxtisaaban. iimaananna waxay tahay ruuxu inuu ilaahay rumaysan yahay, rasuulka rumaysan yahay, hawaab inay ku jirto inuu rumaysan yahay ajrigan. ayb yacnii cibaadadan uu samaynayo, ajrigan iyo cibaadaadkan uu samaynayo hawaabi inay ku jirto uu rumaysan yahay, taas waa mid. waxtisaabanna waxa ay tahay markuu camalka samaynayo waa inuu ajarka ku xisaabtamaa oo uu noqdaa qof yacnii maadaama ilaahay ballanqaadkiisa ay tahay waa inuu isku hubaa oo uu ku xisaabtamaa, saasaa laga rabaa. waxay la mid tahay marka ducadii sayidulistikfaarka wixii ku jiray oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi: wa ana calaa cahdika
wa wacdika wa ana calaa cahdika wa wacdika ilaahu amarkaagaan ku taaganahay oo amarkii aad ifartay waa ilaalinayaa wa wacdika ballankaagana waa ku taaganahay waa rumaysanahay waana filanaa ayb tanna marka sidaasaa laga rabaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم nebigu wuxuu ahaa yuragibu inuu jeclaysiinayo dadka fii qiyaami ramadaan istaagitaankiisa inuu aad ugu tirtirsiinayo dadka ayuu jeclaysiinayo min gayri an ya'murahum isagoo aan faraynin bicaziimatin go-aan aan ku faraynin yacnii bicaziimatin wuxuu ka wadaa waajib ugama dhigaynin go-aan adag isagoon uga dhigaynin ayuu haddana dadka aada ugu tirtirsiinayo o jeclaysiinayo uma yaquulu dabadeed wuxuu dhahayey man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih facala lmuslimi qofka muslimkaa marka korkiisa waxaa oo laga rabaa inuu ku dadaalo an yaxrisa inuu ku dadaalo calaa salaati taraawiix salaatu taraawiixa inuu ku dadaalo maca alimaami imaamkana uu kula dadaalo imaamka uu la tukado walaa yufarita wa an laa yufarita inuusan gabood falin fii shayin minhaa wax taraawiixda ka mida inuusan ku gabood falin walaa yansarifa inuunan gadoomin oo uunan ka tegin qabla imaamihi imaamkiisa ka hor inuunan ka tegin walow zaada calaa 11 11 ha ka ziyaadiyo ow 13 ragca ama 13 ragcaba ha ka badiyee imaamkii uu la bilaabay imaamkiisii inuu la dhammaysto hadduu doono 11 iyo 13 ha ka badiyo liqowli الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga qowlkiisana u daliila man qaama maca alimaami imaamka qofkii la istaago xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo salaada uu ka dhammeeyo kutiba lahu waxaa loo qoraa qiyaamu leylatin habeen oo dhan nin taagan qiyaamu leyl dhammaystiran ayaa loo qoraa ninkii imaamkiisa la dhammaysto ayb wamaa hiya mana ahan ilaa layaalin habeenno un weeyaan macduudatun la xisaabo oo la tiriyo yaqtanimuha alcaaqilu qofka caaqilkaa uu ka faa'iidaysanayo qabla fawaatiha intaynan dhaafin ka hor waa maalmo 30 habeen bis waay ama 29 habeen ayb marka 29ka ama 30kaas habeen qofka inuu dhibtoodo oo uu naftiisa la dagaalamo ee uu salaadaas aynan ka tegin wax yaray ku tahay waxa uu helayana wax weyn ayb marka 11 iyo 13 waxa uu sheegayaa waxay tahay 11 nebiga salaadiisay ahayd oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam saan soo marnay yani sida yani xadiidka Caaisha oo ahaa ma kaana yaziidu fi ramadaan wala fi ghayrihi min 11 ragca kaana yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna nebigu 11 buu tukan jiray ramadaanka ma ka badin jirin markaasay Caaisha waxay tiri 4 buu tukan jiray ha weydiinin quruxdooda iyo wanaagooda maxaa laga wadaa su-aalin quruxdooda iyo wanaagooda 4 aad u dhaadheeray ahaayeen 4taa markuu ka baxo haddana 4 kaloo dhaadheer uu tukan jiray oo nebiga qiyaamkiisa waxaa la sheegay yacni suuratu lbaqara inuu ragco ku akrinayay suuratu nnisaa suuratu aali cimraan ragco inuu ku akrinayay cumar radia allaahu canhu 11 uu amray markii hore 11kaa ragco salaadda waxay ka bixi jireen waagu markuu caddaan raba agteeda marka sida ugu akmalsan waxa ay tahay 11 qofku inuu tukado laakiin uu qiraa'adeeda aad u dheereeyo oo qiraa'ada uu dhirirka ka badiyo ee uu saq dhexe dhaafsiiyo nebigu saas uu yeeli jiray sal ll slam marka ninkii sidaas yeelaayo 11na tukanayo sunnadii waa waafaqay nebiga sal l slam ayb haddii kale marka maadaama waktigii dambe cumar radia allaahu canhu wuxuu ka dhigay ee uu amray 23 in la tukado qiraa'adana lasoo gaabiyo marka qiraa'adii dheerayd maxaa beddelkeeda la geliyeyna sujuudo fara badanaa la geliyey sujuudo aad u fara badan ayaa la geliyey ahlucilmiga qaarkoodna 40 ragcay tukan jireen 38 madiine ayaa laga tukan jiray oo yacnii ay tahay 35 ay tahay labo yani waxaan ujeedaa ay tahay 36 labo ay tahay 3na ay witir tahay imaamu shaafici wuxuu yidhi maka waxaan soo gaaray 23 iyadoo la tukado 20 ragco iyo 3 witri ah in la tukado xilliga ay ka warramayaan culummadaas waa waqtigii salafka oo khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uu yidhi
rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadidaad uma samaynin salaatuleylka oo sunnadiisa qowligaa waxay ahayd nin baa nebiga u yimid markaasuu yidhi salaatuleylka ka waran markaasuu wuxuu yidhi salaatuleyli mathnaa mathnaa salaatuleylku waa labo ilaa intay ku eg tahayna faidaa khashiya axadukum asubxa midkiin haddii uu waagu inuu ku beriyo ou ka cabsado muxuu yidhi nabiga sal ll ly slam falyarkac rakcatan tuutiru lahu maa qad sallaa hal ragca ha tukado halkaas ragca waxay u noqonaysaa witir bay ka dhigeen wixii uu soo tukaday marka labadaas nebigu ayuu sheegay waagu haddaad ka cabsatana hal iska tuka markaa macna intii aad tukatay waxay kaaga dhigaysaa witri a'immada islaamkana ilaa 5 imaam ka badan taqriiban ayaa waxay sheegeen oy xikaayoodeen ijmaacu lmuslimiin inuu ku guntanmay salaatuleylku inaysan xad lahayn waqti yani tiro go-anna inayna lahayn oo ninkii ka badiyaa bidcow ku dhacay ama waa dembaabay iyo war culuma ma aha waxaasi wax culuma ana kama soo yeerin sida badan bal a'immadu ibnu cabdilbar iyo ibnu qudaamata almaqdisi iyo waliyudiin alciraaqi iyo qaadi ciyaad iyo waxay sheegeen ijmaacu lmuslimiin inuu yahay qofku xad in salaatuleylku uuna lahayn nawaafil ay tahay in allaale intii la doono uu tukan karo marka calaa kullin imaamkaagu hadduu 11 tukanayo hadduu 13 samaynayo iyo hadduu 23 samaynayaba inaad la dhammaysato sidaasaa xadiidkan uu sheegay halkan uu ku tilmaamay qaala markaa dadka qaarkood garasho yaridooda waxay gaarsiinaya inay yidhaahdaan warkan iyo ijmaacaadkan xadiidka nebigeyba ka hor imaanaya inay dhahaan ijmaaca muslimiintu macsuum waaye ijmaaca muslimiinta khada iyo gef ma galo ayb adiga unbaa waxaad u fahamtay rasuulku inuu xad gooyey laakiin nebiga xad ma gooynin isaga salaadiisii 11 uu ka dhigtay intaanay ku go-an tahay ma dhihin rasuulka sal ll ly slam sideedana ficilka rasuulka istixbaabaa laga faa'iideystaa haddii la waafaqaayo sifada iyo rakacaadka iyo waxaa lagu waafaqaayo 11kaa sunno ah la dhihi karaa ayb laakiin wixii ka dambeeya waa xaaraam ama waa bidco war culuma maaha nin fuqahada afgaradkooda ka saayana warow dhahaba maba ahan banaan ayb qaala abu daawuud waxa uu yidhi qiila liaxmeda imaam axmed baa waxaa lagu yidhi wa ana asmacu anoo maqlaayo yu-akhiru alqiyaama qiyaamkii dib miyuu u dhigayaa yacni taraawiixa taraawiixda ilaa aakhiri leyli miyuu u dhigayaa qaala laa buu yidhi maya sunnatu lmuslimiina axabu ilaya muslimiinta dariiqooda ayaan jecelahay yidhi aniga oo muslimiinta dariiqooda waa maxay in la hormariyo ceshaha kadib la tukada taraawiixda ilaa dadka qof caajiza iska jiro qof aan habeenkii saqdhexa haleeli karinaa jiri karo marka cumar waqtigaasu dadku u sameeyey sunnatu lmuslimiina axabu ilaya buu yidhi imaam axmed ay axabu cindii aniga agteyda iyadaa la jacayl badan yahay waidaa ragiba alinsaanu insaanku hadduu jeclaysto o u damco an yusalliya inuu tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray waqta asaxari waqtiga aroorta fainahu laa yuutiru ma witrinaayo fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda maratan ukhraa mar kale bal yaktafii waa wuxuu ku gaabsanayaa ku kaaftoomayaa biwitrihi witrigiisa maca imaamihi ou la soo tukaday fii salaati taraawiixi awala alleyl habeenka awalkiisa limaa warada fii xadiidi طalqi bni caliyin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam laa witraani fii leylatin hal habeen laba witri ma ahaanin fii leylatin hal habeen dhexdiisa meeshaana mas'alo kaleu nooga baraarujinayo waxay tahay qofku hadduu imaamkiisa la dhammaysto saq dhexe inuu soo kaco uu tukada kama reebana haddii uu saq dhexe soo kaco oo waqtiga yacni hulusuleyl alakhiir ee inuu tukado ou rabo horena oo nidhi waa inuu imaamkiisa la dhammaystaayo macal witirka uu la tukadaa haddii witirka uu soo tukaday gadaal salaadahan uu ka samaynayo iyaga witir labaad ma u samaynayaa maya buu yidhi maxaa yeele laba witir hal habeen lama tukanayo xadiidka talqi bni caliyin wuxuu ku yimid abu daawuudkaa werinaya qisadiisu waxay ahayd intuu soo tukaday salaaddii taraawiixda iyo qiyaamu ramadaanka salaadiisa oo uu witirkiina tukaday ayuu wuxuu usoo dhaadhacay masjid qoomkiisu ay joogaan markaasay salaaddii hormariyeen waa tukiyey haddana mar labaad witirka markii la soo gaaray ayuu ka soo baxay nin iyaga ka mida buu yidhi tuji
وددكان وترك كبخي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة أنا النبي وحان كمقلب يقول لبا وتر هل هبين دحديس ما هذان يعني وتركي وسوت كذا يكوضها طيب meesha marka qofku sidaas u sameeyna dadka gobol markaas ay yeelaan waxa ka fiican hadaad imaamkii la dhamaysato witirkana la tuko gadaal markaad u timaado si yani qiyaamul layl lagu qoro ajirkiisa gadaal hadaad salaada ka soo haleeshana shafci iska tuko witirka ku celin وأما حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما حديث طلق بن علي وحاك لنا تصى قفك أول الليل إنه جماعة كسر تفكر آخر الليل جماعة الله بعد إنه صبيكر حديث طلق بن علي وأنا تصى لأن مركي ورانا جماعة كنت كذا مركي ضمنا أسقى بالجماعة دي تجيي وجماعة كل حجرة مركب بوق بدن قيل بدن حلقة أبورا طبعا كالضنبئي مركب لجاره أي بعض الناس وحي عاديستين أما يرادان قف قدو صار تراويح كذا صلاة كلا الله صاكع من بنانا جماعة اللي قمت تككروا مركب الله صاكعنا وبنانتها جماعة اللي قمت تكنا وأحمد بيس وبنانتها صحابي قاسا سميي عد بدعو سميي لهي سنة ما أنا المقلل كتبتين وكويا إلا الدواوين إسلام طيب وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا صلاة دين آخر كذا وحد كدكتان ترى إسدار وتر كدقة حديث كاس فهو محمول وحلو حنباريا على من صلى قفك تكنا في آخر الليل هبينك آخر كيسة ولم يوتر أن صوت رنين في أوله هبينك أول كيسة من أن هرا وتر أسو تكنين آخر الليل كتكنا يوتر آخر كدكتو ساسا لقوضها والأمر فيه أمرك حديث كان كجرنا محمول على الندب السنة نما لغو حنباريا وليس على الإيجاب واجب نما معها واجب نما ينونا نهي وحاكتو صاير أبو هريرة واتي النبي أكويري أبو هريرة رضي الله عنه واتي النبي أكويري أوصاني قليلي وذيقي يدر دارمي وحاكو جرت وأن أوتر قبل أن أنام انت أنا سيحنن كهر إن أن أوتر كم اسكتو كذا maradaad islaaga caaw ma soo kici kartid tolo ama ay hurdada kula tagtaa wadaalantahay witirkaaga iska hormarso haddii ilaahay ku soo kiciyana salaado laba un iska wad witir dambe ha ku celin xadiidkaas dambe marka amarka midkaan ayuu sunno ka dhigaan falaa yalzamu ku waajibi maayo khatmu salaati aakhiri leyli آخر الليل كصلاة إذا إن لغو ختم بالوتر وتر مكو واجبايو بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين النبي صلى بعد وتره في آخر الليل النبي واتو كذا وتر ليس كذب آخر الليل وربع فرد كدو كذا النبي صلى الله عليه وسلم مركو وتر كذب ما يكذب ما جاء مركو حي كتوسا وتر كذب إن لتكن كرما إمام النووي صحيح مسلم كشرح سيدنا سليمان رحمه الله قال أبو داود قلت لأحمد إمام أحمد بن كويري ينقض الوتر مسألة كالوال كان كهلا وتر كمبرين يا مجبينه فوق هذا قارب أي قبان هذا أول الليل كي وتر سميسي آخر الليل أصوك عضي هل رجع كلي تهرت الدكو هل كاس رجع محي كم معنى لا هنا في هراء أي جبيني آخر كمركز صلاة قميستنا وتر إسكت بعض السلف أساس طبعا تاسع مركز إمام أحمد لويدية قال أبو داود وحويري قلت لأحمد أبو داود مسائله ليه إمام أحمد بن حنبل وسؤاله إمام أحمد بن حنبل ينقض الوتر وتر كما جبين يا قال لا أبو يرميا قال أبو داود سمعت أحمد يقول أحمد أراه مقلى في من أوتر في أول الليل كقفك وتريه ثم قام يصلي دبدات ساقع ويسوي تكنى يمحوي إلى بالليل قال يصلي ركعتين أي تكنيا قيل وليس عليه وتر كركي سماها مياه قال لا مياه قال وسمعته سئل عمن أوتر وحان مقليب يريده للسؤال يقف وتر سميه يصلي بعدها مثلا سؤال كلوات قف وتريي وتريها كذب لا ركعة متكن كرا الصلاة كلام سمين كرا قال نعم بيرها ولكن يكون بعد الوتر ضجعة ولكن يكون هانا بعد الوتر كذب ضجعة جيف هل مر جيفس يعني وكوضا وتر جاء الصلاة جيف إنه أبحى يا فعل
oo kolkaad witrigii tukato haddaad seexatood soo kacdo labadaad doonta iska tuko ayb walaakin yakunu bacda alwitri dajcatun ayaa ahaanaysa marka hal mar jiifsi ayaa bacda alwitri ahaanayso wayanbagii lilimaami imaamka waxaa u haboon fii salaati taraawiixi salaatu taraawiix waxaa u haboon dhexdeeda an yucnaa bisalaatihi salaadiisa inuu isku kallifo yucnaa yani inuu salaada aada isugu daneeyo daryeel inuu siiyo ayb mabni lilmajhuul ficilkan ku imaanaya musamana laga laqbayna fayusallii salaata alkhaashiciin wuxuu tukanayaa salaadiisa marka sidii uu u daryeeli lahay kuu sheega fayusallii wuxuu tukanayaa salaata alkhaashiciin dadka khushuuca salaadooda kale yuratilu lqiraa'ata qiraa'ada ayuu tartiilinayaa ayb wayطma'inu fi اrukuuci wasujuudi rukuucda iyo sujuudda waa ku xasilayaa ayb wayaxdaru wuxuu iska ilaalinayaa min alcajalati deg deg lianlaa yukhila si uunan u dhimin biطuma'niinati طuma'niinada wayutciba saanu u daalinin man khalfahu dadka isaga ka dambeeyo min aducafaa'i wa kibaari sini hadii salaada aan la boobsiiyo dadka waayeelka waa dhibeen oo maanta dhan haddii rukuucdii ay tahay inta ugu yar ictidaalka inta ugu yar sujuudda inta ugu yar hadduu ka dhigo oo sidaas uu ku wado dadka ducafada waa dhibeen maanta iyo walmardaa kuwa jiran yaquulu saa'ib ibnu yaziid waxa uu leeyahay amara cumar bnu lkhadaab cumar wuxuu amray ubaya bna kacbin wa tamiiman iddaariy an yaquumaa linnaasi dadka inay ugu istaagaanay tujiyaan bi11 rakca 11 ragco qaala waxau yidhi waqad kaana alqaari'u qaarigu wuxuu ahaa yaqra'u inuu akrinayay bilmi'iin almi'iin waxaa la yidhaha suuradaha boqolleyda ah waa suuratu yuunus iyo huud iyo suuradahaas oo kale xataa nactamida ilaa aan cuskanno marka hal ragca ayaa muuqanaysa intuu ku akrinayo yuunus oo kale inuu ragco meel ku akrinayo xataa nactamida ilaa aan cuskanno cala alcisiyi ulaha aan cuskanno ayb min tuuli lqiyaami qiyaamka dheeraantiisa darteed ayb wamaa kunnaa ma aanan ahayn nansarifu inaan gadoomaynay ilaa fii furuuci alfajri ayaanu ku gadoomaynay waaga yacnii soo dhalashadiisa agteeda ayb ayaanu salaada kaga baxaynay meeshaas marka waxay kutusaysaa yani qiraa'adooda inay aada iyaguna u dheerayn 11 ragco oo sidaan la yeelaayo waa si fiican 11 ragco oo iyadoo dhan lagu akrinayo qadra hal ragco intay ku akri jireen oo kale lagu akrinaayo oo qofka markaa uu u maleeyo haddana sidii nebiga inuu wax u samaynayo ma saas maaya waa bannaan tahay in loo sameeyo saas laakiin waxba ma dheerin ayb ninkii 23 tukada sujuudda badsaday iyo yacni adiga sidaan yeelay sunno gaarood dheer tahay malaha waxay noqonaysaa marka qofku inuu yacni 11kii iyo duululqiyaam inuu isku sameeyo sida ugu fiican saas waa nebigu uu ficil ahaan yeeli jiray ayb qisadaan hadda marka saa'ib ibnu yaziid sidaanay dheheen yaziid ibnu ruumaan isaguna wuxuu wariyey cumar inuu 23 tukaday ama uu amray culammada marka bayhaqi iyo a'imatulislaam say u badan yihiin bayhaqi nawowi iyo siday tilmaamayaan waxay ku jamciyeen labadaas riwaayo markii hore sidaanu amray 11 markii dambena 23 buu ka dhigay oo qiraa'adii markaa lasoo gaabinayo bayhaqi sunan lkubraa saasuu leeyahay a'immadii ka dambeysay oo shuraaxdana isagay ka qaateen ayb xadiistan marka fahamkooda wax isdiidaya ma aha 23 uu tukaday wuxuu tukaday yani 11 buu amray waa xiliyadaa kala duwanaa marna 11 marna 23 wax hadda daciifa ma jiro oo a'immadii hore iyo kuwii dhaxaba xadiidka yani aharkaas yaziid ibnu ruumaan wax daciifina ma aanan arkin a'immadii hore waidaa sallama almusallii qofka tukanaayo haddii uu salaamo noqsado min alwitri uu ka salaamo noqsado qaala wuxuu dhahayaa subxaana almaliki alquduus 3 yamuddu bihaa sawtahu codkiisa waa la taagayaa wayarfacu fi 3 marka 3aadna oo korba u qaadayaa lihubuuti dalika can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalam nebigu sugnaansho ay ka sugnaatay rasuulka abu daawuud iyo nasaa-i ayaa warinayaan walaa ba'sa dhib ma leh bixuduuri الnisaa'i naaguhu inay xaadiraan salaata taraawiixi salaada taraawiixda idaa uminat ilfitnatu haddii fitno laga aamin yahay
wakharajna ay baxayaan muxtashimaatin iyagoo markaa xishoonaya kuwa yacni xishood ku dheehan ay yihiin hayra mutabarijaatin kuwa markaa jirkooda iyo quruxdooda muujinaya aan ahayn bihiyaabi ziinatin ku muujinaayo dhar qurux dharkeed walaa diibin iyo barafuun ayb wasallayna waana tukanayaan bikhushuucin wakhuduucin bay ku tukanayaan munazihaatin iyagoo markaa yacni dahirayo buyuut allaahi ilaahay guryihiisa can illagwi maalaayacniga wa radii'i ilkalaam iyo hadalka xun iyagoo ka dahiraya guryaha ilaahay oo min kiibatin xan ah aw namiimatin isku dirdir aw naxwihimaa maxaa yeele naaguhu badan hadday isu yimaadaan afkoodu xoogaa dheeryahay ayb walidaalika rasuulka sal ll ly slam waa kii yidhi tukirna allacna wa takfurna alcashiir naartaad u badantihiin maxaa dhacay markii la yidhi wuxuu yidhi lacnadaad badisaan lacnaddu waxaa weeyaan afxumada xan iyo been iyo qof lacaayo iyo lacnad iyo wa takfurna alcashiir zawjkiina ama ninkiinana waa ku abaal dhacdaan ixsaanka la idiin suubiyo ma yacni ma qirtaan oo waa ka abaal dhacdaan ayb saasuu marka musanifku gaar ahaan wuxuu u leeyahay naagu hadday meel isugu yimaadaan waxyaabahaas marka inay iska ilaaliyaan salaadooda tukadaan iska tagaan lacallahunna waxaa laga yaabaa an yaslamna min alismi dembi inay ka nabadgalaan wayaxdayna ay ku dheefsadaan bihawaabi illahi tacaala allaahuma ayqid quluubana min raqadaati alaamaal wadakirnaa qurba araxiil waxau yidhi ilaahu quluubteenna baraarujiyo kici waxaad ka kicisaa yididiilada dheer hurdadeeda ilaahu naga toosi wadakirnaa qurba araxiil adduunyada inaan goordhow ka tegayna ilaahuna xasuusi wa dunuwa alaajaal awqaaddu inay soo dhowaatayna ilaahuna xasuusi nin walbaa waqtigiisa waa dhowaaday maalin kugu darsanta waqtigaaga waa dhowaaday ha u malayna ninka 70-80 sano jira bis inuu dhowaaday maxaa yeele adiga haddii 20 sano laguu qoray hadda aad 10 jirto maalinba maalinta ka dambayso cumrigaadii waa sii nuqsaama cumrigeenna nuqsaanu ku socdaa ayb wathabbit quluubanaa cala aliimaan ilaahu quluubteenna iimaanka ku sug wawafiqnaa lisaalixi alacmaal ayb waqfir lana waliwaalidiina walijamiici almuslimiin alxadiidu athaani xadiidka labaad fii fadli tilaawati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa fadliga ku soo arooray can abi umaamata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya fainahu ya'tii yowma alqiyaamati qiyaamuhu waa imaanayaa shafiican liasxaabihi isagoo dadkiisa u ergeynayo ayuu imaanaya dadkii akhrin jiray ku camalfali jiray isagoo u ergeynayu imaanayaa yani tawaabkiisaa imaanaysa qur-aanku waa sifa min sifaat illahi alxadiidu daliilu calaa fadli tilaawati alqur'aan xadiidku wuxuu daliil u yahay qur-aanka akhrintiisa fadliga ku jiro wa cadiimi hawaabihi hawaabtiisa weynaanteeda wa annahu shafiicun liasxaabihi dadkiisa inuu u ergeynayo yowma alqiyaamati fii dukuuli iljanna inuu ugu ergeynayo وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة قيامه قرآن كان لكينيا للا إيمانيا يعني ثوابتي سالقوضة إمام أحمد سلاس وكفصر طيب لأن الصفة إلهي والكينة لما به كرنا محل كينة إلا صوضه وح مخلوق هو القرآن كنا الصفة إلهي ومخلوق معه macnaheedu marka waxaa weya hawaabtii qur-aanka ilaahay baa yaqaana sida usoo ekaysiinaye hawaabtaasaa la keenaya imaam axmed ibnu xambal saasuu yihi raximahu llah ayb wuxuu yidhi marka yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahlihi qur-aanka iyo dadkiisii baa lala imaanaya hawaabtii qur-aanka iyo dadkii akhrin jiray alladiina kuwa oo kaanuu yacmaluuna bihi ku camalfali jireen taqdumuhu iyadoo ay u horeyso suuratu lbaqara wa aali cimraan وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال سورة البقرة iyo سورة آل عمران nebigu wuxuu u sameeyey 3 tusaale 3 مثال ما نسيتهن بعد weli aanan iloobin uu yihi saxaabigu qaala waxau yihi kaأنahumaa waxaad moodaa غamaamataani inay yihiin daruur ow amase ظulmataani yani mugdi sowdaawaani madow baynahumaa dhexdooda sharqun iftiin uu yahay wax madow oo dhexdooda iftiin uu ka ifayo ku dhex jiro ayb waa 2 miaal ow amase kaanahumaa sidii iyaga oo xisqaani yacnii 2 guruub 2 qayb
min dayrin shimbiro sawaafa yacni markaa yani waxaa weeyaan baalashoodii taagay oo kale taxaajaani labadooda way doodayaan can saaxibihimaa saaxibkoodii u doodayaan ayb marka xisqaani iyo firqaani waxaa weeyaan qibcataani jamaacataani saddexdii miaal marka waa kuwaas hawaab weyna marka qur-aankii ku jiran haddiiba qofkiisa uu u doodayo wacan cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slama qaal alsiyaamu wاlqur'aanu soonka iyo qur-aanka yashfacaani lilcabdi addoonka ayay u ergeynayaan yowma alqiyaamati ilaahay xaggiisay erge kaga noqonayaan yaquulu siyaamu soonkii wuxuu dhahayaa ey rabbii rabbigayow manactuhu waxaan ka celiyey adcaama cuntadii washaraaba cabitaankii fashaficnii fiihi ilaahu iga aqbal ergadiisa fashaficnii ilaahu ergadeyda aqbal fiihi isaga sha'nigiisa ku saabsan wayaquulu lqur'aanu qur'aankiina wuxuu dhahayaa manactuhu nawma hurdadii baan ka celiyey bileyli habeenkii la hurdo fashaficnii fiihi ilaahu shafaacada sha'nigiisa ku saabsan ilaahu iga aqbal oo ergada aan ka ah ilaahu ii yeel ayb qaala waxa uu yidhi marka fayushafacaani waa la aqbalaa ergadooda markaa wacan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man qara'a qofkii akhriyo xarfan xaraf min kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa ka mida falahu bihi xasana xasano ayaa ugu sugnaatay waalxasanatu xasanaduna bicasharati amhaaliha 10 iyada la mida laa aquulu ma dhahaayo aliflaamiim xarfun intaas waa hal xaraf ma dhahaayo walaakin alifun xarfun alif waa xaraf walaamun xarfun wa miimun xarfun alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimku waa xaraf intaa ajar buu ka helaa qof fayanbagii lisaa'imi marka qur-aanku daryeelu u baahan yahay sida uu daryeelku ugu baahan yahayna waxay tahay alfaadiisa in la barto weyn dad waaweyn iyo dad yaryar dadka waaweynna mas-uuliyadda kaloo saaran waxay tahay ilmaha yaryarkaa inay baraan qur-aanka muslimiinta waxaa la yidhi culamo badan waxay tilmaameen weligood waxaa la yidhi muslimiintu kama aynan zuulin in ay dadkooda waaweyn ee wax dhalay ilmahooda inay qur-aanka barayaan ma aynan ka zuulin waa dabci weligood ay lahaayeen muslimiinta ayb waalidku marka cinaayo inuu ilmihiisa siiyo qur-aanka uu baro isagii uu barto yaa laga rabaa lafdigii macnihiisana in la barto maxaa qur-aanku ujeedka laga leeyahay waxay tahay in la fahmo si loogu camal falo wax marka aan macnihiisa la garanayninna ma la fahmi ma lagu camal fali kara in marka lagu dadaalo oo qur-aanka yacni macaanidiisa wakti la siiyo oo tafsiirkii qofka uu dhagaysto qur-aanka siyaabo badana ilaahay u fududeeyey waktigeennan shaqadiisa qofka isagoo jiro ayuu nus saac samaysan karaa oo qur-aan u dhagaysan karaa tafsiir qur-aan tafsiirkii marka bal isku daya macaanidaas qur-aanka inuu fahmo ninkii de ilaahay wax barayna kutubta tafaasiirta inuu akriyo dhowr tafsiir inuu isku fiiriyo si uu ilaahay kalaamkiisa uu u fahmo ayb intaa kadib haddana qur-aankii waxaa laga rabaa macaanidiisa in lagu tadabburo oo ilaahay wuxuu leeyahay waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum utuura khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi yani fiirfiirin tadabbur waay wadkuruu maa fiihi waxaa kaloo u baahan yahay marka qur-aanka la rabaa in la macaanidiisa markii la barto kadib lagu tadabburo in lagu camal falo intaa waxaa kaloo sii dheer dadka in lasii baro waxaa intaa sii dheer qur-aanka in loo taxaakumo oo dadku hadday isqabtaan oo khilaaf oo dhexdooda dhex maro wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah ila allah marka la leeyay marka ilaa kitaabi illahi wa ilaa sunnati rasuulillahi dad dhanoo muslimiina inay ka tagaan qur-aanka inay u xuguntamaan waa kaarisa iyo dhib meeshiisa yaallo wey qur-aankii marka ataxaakumu ilayhi in isaga loo xugun tago haddaad iska akriso gurigaaga markuu yaallo garna aadan ogolayn qur-aanka in xaggiisa la geeyo aadan gartii u ogolayn qur-aanka waa ka hijrootay waxaa kaloo qofka uu rabaa daawada inuu qur-aanka ka raadsado oo daawada jirka iyo daawada qalbigaaga haddii aad wax ka dareento qur-aanka inaad fiiriso waxyaabahaasoo dhan alimaam ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu leeyahay anwaac badanoo wuxuu ka sheekeeyaa qur-aanka hajrigiisa ku saabsan
ayb dadka siyaabaha qur-aanka ay uga hijroodaan waa badan tahay. kuwa qur-aanka macnihiisay ka hijroonayaan, kuwa lafdigiisaba waa ka hijroodeen, kuwa waxay ka hijroonayaan inay ku camal falaan qur-aanka, kuwa inay ay garsoor ka dhigtaan qur-aankii bay ka hijroonayaan, kuwo kale waxay ka hijroonayaan inay isku daaweeyaan, wahaakada waa badan yihiin anwaa qur-aanka looga hijrooy. fayanbagii lisaa'imi ayb dugsiyada qur-aankan in la daryeelo oo dadka ilaahay wax siiyey inay dugsi ama 2 ama 3 intay sameeyaan ay waqfaan macallin geeyaan dadka qur-aanka bara inay dhahaan ajar badan buu ka helaa qofkan. weliba waqtigeennan dugsiyadii waxay ku dumeen jidadkan hadda la bixiyey dugsiyo badanaa ku dumeen 60% dugsiyada waa dumeen haddaad ogsoontihiin iyo haddii kalaba. dugsiyadii awalba waxay ka dhisnaayeen derbi geeskiisa lagu qabsado iyay ka dhisnaa jireen. taasna waa dayac annaga laftirkeenna aan samayno noo laabanayo. marka masaajidda iyo yacni meelaha kale yani ama dhul loo waqfayaa ama meel loo kireeyayaa ama macallin loo kiradiisa la bixiyayaaba in dadku intay isu dubaridaan qur-aankan inaan nooleynana laga rabaa. cadowga islaamku meesha uu aadka xoogga u saarayo qur-aanka ummad haddii qur-aanka uu ka tago ummaddaas waa tagtay. intaas waxaan ku roonayn oon intaana ilaahay nagu gaarsiiyey fadliga ilaahay ka bacdi dadkeenna qur-aanku waa dhowri jireen waana ku dadaali jireen cilmigooda meesha warba hala ekaado qur-aanku waa un la bara jiray waana layska dhaxli jireen. laakiin waktigan oo dadka qur-aanka yaqaana ay bateen dadka lacagta haysta ay bateen in qur-aankii oo hoos u dhaco shar soo korortay noqonayn. fayanbagii lisaa'imi qofka soomani yani qur-aanku hadda waxaa weya dowlad u maqan oo inta dugsi wax u samayso mushaar ku bixinaysa ma hayno. nin walbaa marka mas-uuliyaddiisa inaan annaga qaadanana laga rabana cid kale inaan lagu hadlayno. fayanbagii lisaa'imi qofka sooman waxaa u habboon an yughira inuu badiyo min tilaawati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa fii hadihi alayaam maalmahan almubaaraka ee barakaysan wallayaali ashariifa iyo habeenadan sharafta badan faina likahrati alqiraa'ati fii ramadaan qiraa'ada ramadaan dhexdiisa badnaanshiyaheeda masiyatan darajo ayay leedahay khaasatan gaar ah laysat ligayrihi min ashuhuur oo aan bilaha kale aanay lahayn liyaqtanima si uu qofka uga qaniimaysto sharafa azamaani zamanka sharaftiisa fii hada shahri bishan dhexdeeda alladii unzila fiihi alqur'aan qur-aanka la soo dejiyey wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisa fii layaali ramadaan la akhriyana lahaa masiyatun bay leedahay darajo faina alleyla habeenka tanqadicu fiihi shawaaqil waxaa go-ayso shawaaqisha habeenka yacni qofku ma mashquulsana waa degan yahay watajtamicu alhimamu himadaha ayaa soo ururayso wayatawaaqa'u alqalbu qalbigiibaa ayaa iswaafaqaaya iyo wallisaanu carabka cala tadabburi bay isku waafaqayaan tadabbur korkiisa oo ilaahay muxuu yidhi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila habeenka qur-aanka la akrinaayo tadabburka carabkii qalbigii yaa iswaafaqaya tadabburkay isku waafaqayaan. waqad habata waxaa sugnaaday ana jibriil kaana yalqa nabiya sal l slam nebiga inuu la kulmi jiray kula leylatin habeen kasto oo min ramadaana ramadaan ka mida fayudaarisuhu lqur'aana qur'aanka ayuu la daraasaynayey yani way isla akrinayeen waa midba midka kale walow kaana dikru afdala min alqur'aani dikriga kale haddii uu yahay mid qur-aanka ka fadli badan ow musaawiyan lahu ama mid u dhigmo la facalaad daa'iman sidaasay samayn lahaayeen weligood ow fii bacdi alawqaati bay samayn lahaayeen maca takraari ijtimaacihimaa iyagoo nebiga iyo jibriil kulankooda uu soo noqnoqonayo yacni dikri kaleo qur-aan ka fadli badan hadduu jiro isagay akrin lahaayeen marka qur-aankaa fadli badan weyna. waqad afaadanaa hada alxadiidu xadiidkan wuxuu noo faa'iideeyey istixbaaba diraasati alqur'aan qur-aanka daraasadiisa sunanimadeeda fii ramadaana la daraaseeyo ayb walijtimaaci calaa dalika iyo in arrinkaa lagu kulmo sunanimadiisa una tusaa wa cardi alqur'aani qur-aanka bandhigiisa sunanimadeeda calaa man loo bandhigo qof huwa isaguba axfadu lahu qur-aanka xifdin badan qof qur-aankii xifdin badan oo aada u aqoon badan in qur-aanka loo bandhigo ee la yidhaha waa akrinayay dhegeyso ee iga sax sidaa in la dhaho. waqad kaana salafu saalix maxaa yeele labadii ugu aqoonta badnayd waay waxaa qur-aanka isku akrinaya jibriil iyo nebi maxamed sal l slam
nebiga mucallimkiisa jibriil uu ahaa dadkoo dhanna mucallinkooda waxaa ahaa rasuulka sal ll ly slam labadoodii baa marka yacnii isu bandhigayay qur-aanka ayb waqad kaana salafu الصaalixu waxay ahaayeen min hadihi اlummati ummaddan yughiruuna min tilaawati اlqur'aan qur-aanka akhrintiisa aad bay u badin jireen min fii ramadaana ramadaan dhexdiisa wa kaanuu waxay ahaayeen idaa saamuu haddii ay soomaan jalasuu fi lmasaajidi masaajiday fadhiisan jireen wa qaaluu waxay dhihi jireen naxfadu sawmanaa soonkeenaan ilaalinaynaa walaa naqtaabu axadan qofna ma xamanayno wa kaanuu yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhrin jireen fi salaati wagayriha salaad iyo keyrkeedba kaana cuثmaanu radia allaahu canhu cuثmaan wuxuu ahaa yakhtimu alqur'aana qur'aanka inuu khatimaayey kula yowmin maalin kastaa maratan hal mar wa kaana bacdu salafi salafkii qaarkood waxay ahaayeen yakhtimuhu qur-aanka inuu khatimaayey fii qiyaami ramadaana qiyaamu ramadaanka ayuu ku khatimaayey fii kulli 3 layaalin 3 habeenoo kasta wa bacduhum qaarkoodna fii kulli 7 ayay khatimaayeen 7 maalinoo kasto wa bacduhum qaarkoodna fii kulli 10 10 kasto kaana alaswad bnu yaziid annakhaciyu wuxuu ahaa yaqra'u alqur'aana qur'aankuu akrinaayey fii kulli leylatayni 2 habeenoo kastoo fii ramadaana ramadaan dhexdiisa 2 habeen waa khatimaya 5 juz wa kaana qataadatu qataada wuxuu ahaa yakhtimu fii kulli 7 daa'iman 7 ayuu markaa ku khatimi jiray qur-aanka mar kasto wa fii ramadaanana kulla 3 ramadaan markii lasoo gaarana 3 maalin kasto wa fi lcashri alawaakhiri 10 dambena fii kulli leylatin buu khatimaayo wa akhbaaruhum fii dalika mashhuuratun akhbaartoodana mashhuur waayo arrinkaa ku saabsan qaala alxaafid ibnu rajab raximah اllah masalada marka waxuu kutusaa xadiid waxaa soo arooray 3 ka yar inaan qur-aanka lagu dhammaynin halkan hadda waxaan maqlaynaa 1 maalinaa lagu dhameeyey iyo 2 iyo say iswaafaqayan qaala alxaafid ibnu rajab raximah اllah inamaa warada annahyu can qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa iska reebidda layska reebay way soo aroortay fii aqala min 3 3 wax ka yar in lagu akriyo iska reebidda layska reebay waxay ku soo aroortay buu yidhi cala almudaawamati calaa dalika in la daa'imo sidaas oo qofku uu wardi taxan ka dhigto 3 wax ka yar inuu maalin walba uu ku dhammeeyo maalin kastaa qur-aanka inuu dhammeeyo ama 2 beriyo kastaa inuu dhammeeyo oo sidaasi uu ka dhigta raatib joogto ah taas waay nahyigu raatibku ku dhacaa fa ama alawqaatu almufadalatu laakiin wakhtiyada la fadilay ka shahri ramadaana bisha ramadaan oo kale wa khusuusan ilayaali habeenada maba kusii jiraane allatii tutlabu fiiha la dalbaayo leylatu lqadri aw fi lamaakini almufadalati ama meelaha fadliga badan markaad joogtid ka makata maka oo kale liman dakhalahaa qofkii soo galay oo min gayri ahlihaa dadka deganna aan ahayn makaa ilaahay kuu suuro geliyey ma sii joogaysid waxyar baad joogaysaa markaasoo kale qur-aanka inaad aada u akriso 3 ka yar inaad ku dhammayso waa fiican tahay fa yustaxabu waxaa la sunneeyaa aliktaaru fiiha inuu dhexdeeda ku badiyo min tilaawati alqur'aan ikhtinaaman ka faa'iidaysasho lifadiilati الzamaani wاlmakaan waktiga iyo makaanka fadligiisa wa huwa qowlu axmeda waisxaaqa wagayrihimaa min ala'imati waa imaam axmed qowlkiisa iyo isxaaq iyo a'immada wuxuu yidhi marka wa huwa qowlu axmeda waisxaaqa wagayrihimaa min ala'imati wacalayhi yadullu camalu gayrihimna sidaasuu tusaya kamaa sabaqa dikruhu ladaa'if almacaarifkuu ku yidhi marka salafku fahamkooda xadiidkan sidaasuu ahaa lilmudaawama baa loo diidaya laakiin ninkii wakti munaasabada ka faa'iideysanayo soon oo kale iyo maka iyo madiine iyo meelahaas oo kale isagoo inuu 3 ka yar ku akriyaa ma laga reebin marka xadiidka fahamkiisa waxaad moodaa marka culammadu inay meelo badan ka feerinayeen ma laga maarmaayo marka qofka inuu shuruuxda culammada uu la socdo allaahuma ajcal ilqur'aana alcadiima rabiica quluubina ilaahu qur-aanka weyn waxaad noogaga dhigtaa qalbigeenna gugiisa wa nuura suduurina laabaheenna iftiinkeeda ka dhig wa jalaa'a axsaanina murugteenna midka lagu faydaayo ilaahu ka dhig wa dahaaba humuuminaa murugteenna tebintiisa ka dhig ayb wa daliilanaa
daliilkeenna midkana tusaa ilaahu nooga yeel ilayka adiga xaggaaga noo kaa keeno na kaa tuso wa ilaa jannaati naciimi midkana tuso ilaahu nooga dhig qur-aanka allaahuma dakirnaa minhu maa nusiinaa ilaahu wixii nalaga ilowsiiyey qur-aankana xusuusi wacallimnaa minhu maa jahilnaa waxaan ka jaahil noqonayna na bar warsuqna aliktaara min tilaawatihi nagu arsuq calaa maa tuxibu watardaa. ayb intana marka sidaasuu qur-aankii ka sheegay. alxadiidu athaalith fii aadaabi tilaawati alqur'aan qur-aanka see loo akrina aadaabta qur-aanka qur-aan akrinta. can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qur-aanka qofkiisa waxaa lagu dhahayaa iqra' akri warqa fuul waratil kala dhigdhig kamaa kunta turatilu fi ddunyaa sida aad u kala dhigdhigi jirtay adduunyada dhexdeeda fa ina mansilataka darajadaada cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa aayadda ugu dambaysaad akrinaysa yay ku eg tahay ayay ahaanaysa agteeda. akhrajahu axmedu wa abu daawuuda waannasaa'iyu watirmidiyu wa isnaaduhu xasan. alxadiidu daliilu calaa adabin min aadaabi tilaawati alqur'aan xadiidku wuxuu sheegayaa aadaab ka mida aadaabta qur-aanka loo akriyo wahuwa tartiiluhu waa in la kala dhigdhigo wa icdaa'u kulli xarfin xaraf kastaa in la siiyo maa yastaxiqu wuxuu mutaysanayo xaraf walba marka wuxuu mutaysanaya waa maxay makhrajkiisa laga soo bixiyo sifadiisana loo yeelo xaraf kastaa makhraj buu leeyahay makhaarij baa jirta waxaa kaloo jira sifaat xurufta sifaat bay leeyihiin sifaat daatiya iyo sifaat caradiya kulli in la ilaaliyo sifaatka daatiyada iyo kuwa caradiyada intaba in la ilaaliyo. ayb markaad sidaas yeesho waa tartiilkii waa imaanaya iyo wuquuftii iyo meelahaas iyana aada fiiriso. ayb waxaa dhici karta xuruufta qaar inay isku makhraj noqdaan sifaatka ay ku kala bedelmayaan ay ku kala soocmayaan wahaakada lianna rasuula sala allahu alayh waali wasalam maxaa yl rasuulku akhbara wuxuu sheegay annahu yuqaalu in la dhahayo cinda dukhuuli iljannati jannada geliddeeda agteeda lisaaxibi alqur'aani qofkii saaxibilqur'aanka ahaa almulaasimi lahu ee laasimay tilaawatan xagga akhrinta wa camalan iyo ku camalfalkaba iqra' ayaa la dhahayaa fuul wascad kor iqra' akri wascad fuul ilaa darajaati aljannati jannada darajaadkeeda waratil kala dhigdhig kamaa kunta turatilu fi ddunyaa faina mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. waatartiilu tartiilka yuciinu calaa tadabburi alqur'aan qur-aanka in lagu tadabburo ayuu qofka ugu kaalmayna wa tafahumihi qur-aanka fahmitaankiisa wadalika min almaqaasidi almatluubati in qur-aankii la fahmo lagu tadabburana waa ujeedka la dalbaayo maqaasida la dalbaayo. qaala tacaala alla wuxuu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab. wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka miyaynan fiirfiirinaynin fayanbagii lilqaari'i qaariga marka waxaa u habboon an yata'amala inuu fiirfiiriyo maa yaqra'u wuxuu akrinaayo ow amase an yacrifa inuu garto maa yutlabu minhu waxa laga rabo fain kaana maa qasara fiihi waxa hadduu yahay waxa uu ku gaboodfalay ictadara wastakfara. qur-aanki waa aduu kula khidaabaya dab haddii aada aragto waxaad ku gaboodfashay in laga sheekaynayo ictadara waa cudur daaranayaa qofkii wastakfara dembi dhaaf buu ilaahay weydiisanaya. waidaa mara biaayati raxmatin haddii uu soo marana istabshara waa bishaaraysanaa wasa'ala waa weydiisanaya ow cadaabin aayad cadaab sheegayso ashfaqa waa baqaya watacawada ilaahay buu magangelayaa ow amase tansiihin aayad ilaahay nuqsaan iyo ceeb ka hufayso nazaha wacadama rabbi buu nasahayaa waana weyneynayaa ow ducaa'in aayad duco sheegayso tadaraca ilaahay buu isu bihinbihinayaa wa dalaba waxaas buuna ilaahay ka baryayaa su-aalanaya. ama asurcatu degdega almufridatu ee xadgudubka ah ow amase hadu lqur'aani qur'aanka yacni boobsiintiisa ka hadi shicri shicirka sidiisa in loo boobsiiyo gabayga sidiisao kale in loo boobo. ayb fainahu laa yata'ataa macahu iyadoo fainahu shanigu waxa uu yahay laa yata'ataa ma suurtoobayso macahu surcadaas iyo boobsiiskaasi tadaburun tadabbur bixaalin sina
waqad yasilu dalika inuu gaaraaba la arkaa ila taxriimi xaaraantinimo idaa kaana fiihi ikhlaalun billafdi haddii uu lafdiga dhimaayo liannahu tagyiirun lilqur'aan waa qur-aankiio la doorinayo boobsiiskii hadduu keenaayo inaad kelmaddii 2 xaraf ka cunto 3 xaraf aad ka qaaddo markaa waa ku dambaabaysaa dadka qaarkood marka aaday u boobsiiyaan xuruufta waa cunayaan waa laqlaqayaan ma gaarayaan xuruufta qayb kalena iyagu marka waxaad arkay meelahan hadda qur-aan saarka oo kale la yidhaahdo waxyaaba waxaad arkay qur-aankii ku ciyaarid qur-aanka lagu ciyaarayo kale ah hal kelmadow maanta dhan soo celcelinayo hal kelmad jumla mufiida maaha hal kelmad qur-aan say ku noqona keligii maanta dhan waxaa laga yaaba inuu soo celiyo cajuuzun 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 inuu yidhahdo qur-aankii oo lagu ciyaarayo cajuuzun keligeed qur-aan maaha yani jumlo mufiida ma samaynayo hal erey soo celceliya mararka qaarna waxaa laga yaabaa ereyga nuskiis inuu sii sheegay ka daran tahay iyadana ilaahay marka waxaa lagu xusaa jumlo mufiida ah oo soo aroortay waxaa lamid a dadkan iyagana allah 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 maanta dhan dhahayo allah maxay tahay marka waayahay allah markaad tiri ma weyn yahay ilaahay ma xumaan baad ka hufi rabtaa maxaa rabtaa adiga allahu akbar dheh ku wardi laa ilaha illa allahu dheh waxaad tidhaahdaa haddaad doonto yacni subxaana allah dheh alxamdu lilah dheh waa jumlo mufiida laakiin allah ma ammaani rabtaa mase waa cay rabtaa maxaa laga garanaya qaar kalena waxay ka yidhaahdeen alifkii iyo hadii bay isku qabaan baa soconaysa kuwaas iyaga waxaa weya magacii ilaahay oo lagu ciyaarayo ninna ma jecla magaciisa in lagu ciyaaro ilaahay magaciisa in lagu ciyaaro maxay noqonaya waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeye waa yani aadaab xumi qur-aanka iyo adkaartii la xumaynayo lama rabo ayb qofkii marka waxaa laga rabaa inuu markaa uu dhammaystiro qur-aankiina marka u akrinayo inuu dhammaystiro meesha u dambaysa faإida kaanat الsurcatu surcadu haddii ay tahay laysa fiiha ikhlaalun wax ikhlaala hadduunan ku dhex jirin bilafdi la dhimaayo biisqaadi bacdi اlxuruufi xuruufaha qaarkoodoo la ridaayo ow idqaami maa shay isku qabashadiisa laa yasixu idqaamuhu idqaamkiisa ounan ansaxaynin falaa ba'sa bihaa dhib ma laha lianna min annaasi dadkii waxaa ka mida man yashulu calaa lisaanihi qof carabkiisa uu ku fududaanayo lafdu اlqur'aani yani wuxuu leeyahay hadday qur-aanku uu boogsiinayo qofka laakiin waxna uusan dhimaynin lafdina uunan dhimaynin xuruf ridid ounan ku dhimaynin ama idqaam shay idqaamkiisa ounan ansaxaynin ounan ku dhimaynin kaasi dhib ma laha haddii xadri uu samaynayo xadri riwaayadiisa hadday taxdiir ay tahay ama xadri uu la imaanayo dhib ma laha وmin aadaabi الtilaawati waxaa ka mid a alatii yanbagii an yataxallaa biha alqaari'u ay habboon tahay qaarigu inuu isku qurxiyo ikhlaasu niyati lilah niyada inuu ilaahay u barax tiro tacaala wa an yaqra'a calaa dahaaratin dahaaro inuu ku akriyo lianna dalika min tacdiimi kalaami illahi tacaala qur-aanka marka la akrinaayo qofka waxaa laga rabaa ilaahay dartii inuu u akriyo istutus iyo waxa uunan u akrinin ha lagu arko iyo lacag ha lagu siiyo iyo qaari ha lagu dhaho inuunu akriyo dadka ugu horeeyo naarta lagu tuuraayo waxaa ka mid a nin qur-aanka soo akriyey oo xifdiyey bartay marka ilaahay uu yidhaha qur-aankii baa ayaad baratay maxaa ku samaysay ilaahu adiga dartaa inuu akriyo been baad sheegaysaa baa la dhahaya qad qara'ta liyuqaala laka qaari waqad qiil waxaad qur-aanka u akrisay qaari in lagu yidhaahdo waana lagu yidhi naartaa lagu jiidaa ayb waxaa kaloo laga rabaa buu yidhi marka qur-aanka in dahaaro lagu akriyo qur-aanku qofka biduuni dahaara inuu akriyo yani dahaaro yani weyse la-aan inuu qur-aankii matalan akriyo qofkii min xaysu ljawaazu waa bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahay waxaa ka fiican hay-ad dhammaystiran qur-aanka in lagu akriyo weyse qab lagu akriyo qofka soo weyse qaato markuu qur-aan akri rabo ama kor ka akri ama si kale u akri taana marka waxaa kutusaa rasuulka sal ll ly slam markii la salaamay isagoo xaajo gutay derbiguu u degdegay waa tayamumsaday markaasu wuxuu yidhi innii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri tahaara waxaan nacay buu yidhi inaan ilaahay xuso anoon daahir ahayn
marka weyneyn qur-aanka la weyneynayo ka mid tahay. musxaf haddii laga akrinaayo oo qofka uu qabsanayana maba bannaana inuu musxafka qabsado biduuni dahaara, isagoon daahir aynu weyse qabin inuu kitaabka qaato ama uu qabsado maba bannaana iyada. lanna ilaahayna wuxuu leeyahy laa yamasuhu ila almutaharuun, nebiguna wuxuu yidhi laa yamasu lqur'aana ilaa daahir. saxaabada rasuulkana sacd bin abi waqaas iyo salmaan alfarisi iyo saxaabo badan iyagu waxay yidhaahdeen qur-aanka qofka ma taaban karo isaga oo muxdis ah oo markaa xadaay weysadu ay ka jaban tahay. ibnu rajab wuxuu yidhi qof ku khilaafsan saxaabada dhexdeeda lama sheegin uu yidhi intaas. maxaa kuusoo arkay markaa shay saxaabadiiba khilaaf aan laga xikaayoonin oo laga sheegin, isagiina mar walba yacni qur-aankii musxafkii lagu weyneynayo ee axaadiistaana saa ay sheegayso. marka aayadda laba tafsiir bay leedahay dabcan, ma moogi kaasna oo tafsiir marka malaa'igta laga waday looxulmaxfuudkana waa jiraa, tafsiir waxaa jira isagana mufasiriinta ay ku fasireenoo qur-aankan musxafkaba in loo jeedo. labada tafsiirna salafku waa laga soo naqliyey, hal mid keliya kuma go-no ogow. wa min aadaabi tilaawati qofka marka ina almu'mina laa yanjus, iyana muminku waaba najaas yaa ku leh, muminku najaas maaha dabcan laguma laha, korkiisana najaas ma noqonayo, dhididkiisa najaas maaha wahaakada. laakiin mu'minku dahaaro la-aan waa noqon karaa. nebigaaba wuxuu leeyahay inii karihtu an adkura allaha wa ana calaa gayri dahaaratin, soo rasuulkii ma dhahayo sal l slam. markaa dadka qaarkood mafaahiimtaa ku dabagadoomayso, waxaa laga yaabaa marka in waxaan islahayn inay marka yani ay u arkaan inay iska hor imaanayaan oo kale, ma iska hor imaanayaan waxaasoo dhan. wa min aadaabi tilaawati qur-aan ayb fa ina min annaasi wuxuu yidhi marka ayb wa min aadaabi tilaawati waxaa ka mida qur-aanka akrintiisa aadaabtiisa an yastaaka qofka inuu cadaydo, lianna alfama afku dariiqu lqur'aan, waa meeshuu qur-aanka soo marayay. wa an laa yaqdaca alqiraa'ata qiraa'adana waa inuusan gooynin limuxaadathati axadin qof la sheekaysigiisa inuusan u gooynin. fa ina min annaasi dadka waxaa ka mida man idaa jalasa qof haddii uu fadhiisto yaqra'u isagoo inuu akriyo, wa bijaanibihi insaanun dhinaciisana qof uu fadhiyo, aktara wuxuu badinaa qadca alqiraa'ati qiraa'ada goynteeda, wa muxaadathata jaarihi iyo deriskiisa inuu la sheekaysto ninka la deriska. wahada laa yenbagii ma habboona, liannahu icraadun can ilqur'aani bilaa daa'im, qur-aankii oo laga jeesanaayo iyadoo wax dana aan keenin waay, duruuf aan keenin wad qur-aanka akhriskiisa. haddii duruufi maalan ay timaadaha sida qur-aanka qabashadiisa weysela'aan lama qabtaan hadda dhahna, laakiin hadday duruuf keenta ka waran waa la qaadaa. qur-aankii oo meel qashina yaalla haddaad la kulanto weysena aadan qabin, biyo iyana aysan kaa agdhoweyn, qaad dhib male, duruufka keenta. wa min aadaabi tilaawati an yasjuda alqaari'u, waxaa ka mida qiraa'ada aadaabteeda qaarigu inuu sujuudo idaa mara haddii uu soo maro biaayati sajdatin, aayad sajda hadduu soo maro inuu sujuudo sujuudu tilaawa, wa huwa calaa wuduu'in isagoo weyse qabo oo inuu weyse ku sujuudaan. fii ayi waqtin waqti kastoo kaana ahaado min leylin aw nahaarin maalin iyo habeen, fa yukabiru lisujuudi, sujuudda waa u kibaarana, ama salaad ha ku jira ama khaarija salaad ha ahaado, takbiiru samayna. takbiirta marka salaada marka lagu jiro iyada wax khilaafa ma ogi laga sheegay. ibnulmundir kitaabka awsadka iyo ama yani ishraafka iyo wuxuu sheegayaa wax khilaafa ma sheegayo marka salaada lagu jiro. allahu akbar inuu u hoobto markuu sujuudda hoobanayo. ayb waxaana laga qaadanaa culimmadu ay yidhaahdeen cumuumka xadiidka nebiga sal l slam kaana yukabiru cinda kulli khafdin wa rafcin. nebiga salaada markuu tukanayo waxaa la yidhi mar walba uu foorarsanayo iyo mar walba kor usoo kacayaba waa kibaaran jiray, midaana foorarsigay ka mid tahay. ayb kasoo kor noqoshadana waa soo kor noqosha. xadiidkaas caamka ah yay culimmadu u daliishadeen salaado ilaa ku jiraayo. ayb marka salaada lagu jiro, marka aan salaada lagu jirinee khaarija salaad qofku inuu takbiirsado waxaan malaynaya imaam maalik yaa isagu aan laga sheegin oon arkaynin, a'imada kale iyagu waa arkaan. salafkii qaar badan intooda badan in la takbiirsado way arkaan. ayb xadiis marka takbiirta ay ku jirto cabdullaahi alcumari oo ku jirana waa jira oo daciif.
ibnu xajar laakiin wuxuu sheegay fii bacdi kutubihi wuxuu ku sheegay mustadraga xaakim waxa uu yidhi xadiidkaas takbiirtaas soo aroora min riwaayati cubaydillaahi marka mustadragan matbuuca ah ma taxqiiqsana isagoo cabdullaahi baa ku taalla cubaydillahi kuma taalla marka ibnu xajar isagoo naqligiisaas marka uu kasoo naqlinayo culimmadii hore iyagu maqduudaad la saxay oo la muqaabaleeyey wax kusoo naqlin jirin madbacaddan hadda dadku iska qorayaanoo kale ma aynan ahayn marka naqligiisaas marka waa la ictimaadi karaa fiirin iyo baxdi bay u baahan tahay calaa kulli taas meeshaas marka iyadu saas waay meelaha qaarkood marka masaajidda qaar dhib badan baad arkaysaa imaamkiisa qiraa'adiibuu iska wadaa shib uu iska leeyahay dadkii iyo qolooyinkii gadaale iyo naagihii iyo waa kala go-aya ma fahmaya allahu akbar ma dhahaayo aayar isagoo aamusan unbuu iska foorarsana dadkii waxay kusoo kacayaan ay kusoo baraarugayaan qiraa'adii oo waxay kusoo baraarugayaan bilaabatay haddana qofkii marka hadhow imaamkiisa see ula soco karaan mutaabacadu waa waajib imaamka marka waxaa laga rabaa si ay dadka ula soco karaan inuu yeelo sunno gaaro hadda uu ku dhegaayo ama waajib gaarana meeshaan ma yaalo salafkii takbiiradan waa samay jireen innagana marka salafku kama sunno badnin mana ka dadaal badnin ayb markaa wuxuu yidhi fayukabiru lisujuudi laakiin mararka qaar waxaad moodaa wax la yidhaha waxaa jira khaalif tucraf waxay dadka aqoon jireen iska dhaaf waa lagugu baranaa ninkii waxaas samay jiray waaya lagu dhahaa waxaas ma cibaadaadku ma anfacaya waxaas fayukabiru lisujuudi buu u kibaaranayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa subxaana rabbiya alaclaa wayadcuu waa ducaysanayaa uma yarfacu min asujuudi sujuudi buu kasoo kor noqonayaa biduuni takbiirin walaa salaam takbiir la-aan salaama noqsi la-aan muxuu ka hadlaa hadda isaga marka salaamo noqsi buu sheegaa fiiri khaarija salaad wuxuu ka hadlaa allahu akbar hore waa dhahayaa laakiin midda dambe iyo salaamo noqsiga waa iska dhaafaa saas isagu doortay musanafka ibnu abi shayba waxaa ku sugan aathaar salafka iyana ka sugnaatay takbiiratulixraam takbiir kale assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah salafka qaar ka miday ka sugnaatay ninkii samaynaya marka bidcad samaynaya iyo khuraafaad waayo iyo in la dhaho qalad khuraafaad qofkii yidhaahdo khuraafaadkuusa aqoonin mushkilo saasay noqon huwa maa yacrif khuraafaat walaa sunna walaa bidca nin garana ma maxaa yeelay waxaan salafkii iyagaa isku khilaafay kitaabkan ibnu abi shaybaha musanafka salaamo noqsiga aimo salafkii kamiduu ka sheegaa takbiirtan sujuudda lagaga soo kor noqona qaar kamiduu ka sheegaya adigu haddaad sidaan samaysana waa fiican tahay keyrkaa hadduu si kala sameeyana ou salaamo noqsadana muran ha ku furin wa min aadaabi tilaawati waxaa ka mid a akrinta aadaabteeda anlaa yajhara alqaari'u qaariga inuusan la jahrin bixaysu meel yata-adaa bijahrihi la jahridiisaas oo ugu dhibaatoonayo darteed man xowlahu agagaarihiisa dadka ah min qaari'in mid akrinaayo ah ow musallin ama nin tukanaayo ow naa'imin mid hurdaayo wanaxwihi qiraa'adaada waa inaynan dhibin keyrka wa huwa fii ayb wuxuu yidhi marka waqad naha nabiyu sal l slam can dalika nebigu arrinkaa waa reebay facan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal ictakafa nabiyu sal l slam fi lmasjid nebigaa masaajidkii ku ictikaafay fasamicahum wuxuu maqlay yajharuuna bilqiraa'ati qiraa'ada iyagoo kor u qaadayo wahuwa fii qubatin lahu teendho uu lahaa isagoo ku dhex jiro fakashafa sitra daahi buu feyday wa qaala waxauu yidhi alaa hooy ina kullakum dhammaantiin munaajin rabbahu mid kastoo idinka mida rabbigiibuu lafaqayaa falaa yu'diyanna bacdukum qaarkiin younan dhibin bacdan qaarka kale walaa yarfacanna bacdukum qaarkiin yousan kor u qaadin calaa bacdin qaarka kale bilqiraa'ati younan kor ugu qaadin ow qaala ama wuxuu yidhi fi salaati salaada dhexdeeda aadaabta marka qur-aan akhriskana waxaa aada looga baran karaa oo markaa yani si fiican looga baran karaa kitaabka imaamu nawowi leeyahay atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan kitaabkaas marka qofka inuu akriyo allaahuma hadda isaga wax yar buu ka sheegay laakiin way badan tahay allaahuma asluk binaa subula ahli asacaadati waatuqaa waacidnaa min muujibaati alkhudlaani waashaqaa wataqabal siyaamana waqiyaamana waqfir dunuubana waaahaamana allahuma callimna maa yanfacuna waanfacna bima callamtana wazidnaa cilman waalxiqna biاsaalixiin
fasalkan kalena aan ku darayna. alxadiidu araabic leanna waxaan rabnaa inaan deg deg ku gaarno axkaamta siyaamka. axkaamtaa muhiima, weli axkaamtii ma aanan gelin. ayb alxadiidu araabic fii wujuubi alcamali bilqur'aan, qur-aankii in lagu camal falo waajibnimadeeda. can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam, nebigu waxa uu yidhi alqur'aanu xujatun laka aw calayka, qur-aanku xujou kuu yahay adiga, aw calayka ama adiguu kugu yahay xujo. alxadiid alxadiidu daliilu calaa wujuubi alcamali bilqur'aan, xadiidku wuxuu daliil u yahay qur-aanka in lagu camal falaa inay waajib tahay, waataqayudu biawaamirihi, qur-aanka awaamirtiisa in laysku dabro, wa nawaahiihi iyo waxa uu reebaayo laysku dabro, yacni lagu taqayudo, lagu dhego. wa annahu xujatun, qur-aanku inuu xujo yahay liman camila bihi qofkii ku camal falay, watabaca maa fiihi waxa ku jira raacay. wa xujatun xujo inuu yahay calaa man qofka korkiisa uu ku yahay lam yacmal bihi aan ku camal falin, walam yatabic maa fiihi wax ku dhex jirana aan raacin. qaala bacdu salafi waxay dhaheen maa jaalasa axadun qof lama fadhiisanin alqur'aana qur'aanka faqaama canhu ka kacay ma jiro saaliman isagoo nabad galay. bal imaa an yarbaxa, yani saaliman wuxuu ka wadaa isagoo sidiisii hore un iska ah. bal imaa an yarbaxa, ama waa ribxayaa, ow an yaksara, ama waa inuu khasaaro, wax ka dhexeeya. nin qur-aanka la fadhiistay ma jiro ilaa ama isagoo ribixsanoo tagaa ama isagoo khasaarayoo tagaa. uma talaa qowlahu tacaala buu akhriyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءu waraxmat lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara. mu'miniinna raxmadow u noqday, dhaalimiinna khasaaro u noqday. salafka qur-aanka fahamkooda feerin. annaga qur-aan macnihiisa markaan baranayna alfaadaan baranaa, laakiin iyaga waxay baranayaan alfaadii macaanidii guud, aayaddan yacni wacdiga lagala bixi karo. ilaa qur-aanka in lagu camal falo waa ujeedka, oon sahay ka dhiganno ilaahay ugu dhowaan. ina algaayata alquswaa, waxa uu yidhi ulajeedada, ina algaayata alkubraa, ulajeedada ugu weyn, yoolka ugu weyn min inzaali lqur'aani, qur-aanka soo dejintiisa, tasdiiqu akhbaarihi wa akhbaartiisa in la rumeeyo, waalcamalu bihi iyo in lagu camal falo. fiiri, qur-aanku laba waxyaaboodu ka kooban yahay. culimmada saasay dhahaan akhbaar iyo axkaam. akhbaar iyo axkaam. akhbaarta qur-aanka maxaa loogala hortegaana? tasdiiq in la rumeeyo. axkaamta qur-aankana maxaa loogala hortegaana? inqiyaad in loo hogaansamo. inqiyaadka asal qalbiga u amarka. haddaad qalbigaaga ka goosato inaad u hoggaansato axkaamta qur-aanka, camal inaad ku rumaysaa lagaa rabaa marka, ood camalkiina ku darto. ilaahay marka wuxuu yidhi subxaana wa tacaala watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla. ibnu katiir wuxuu yidhi sidqan fi lakhbaari wacadlan fi laxkaam. qur-aanka akhbaartiisu waa run, axkaamtiisuna cadaalad. qof ay dhib ku tahay male. marka tasdiiqu akhbaarihi waalcamalu bihi ay biaxkaamihi in lagu camal falo. axkaamtuna meelo badan bay kasoo baxeen. biimtithaali maa, see markaa lagu rumaynayaana biimtithaali maa, shay fartoonaanshiyihiisa in la fartoonaado, ya'muru bihi ou faraayo, waijtinaabi maa, shay ka fogaanshihiisa yanhaa canhu ou reebaayo. qur-aanka laysa algaradu, ulajeedadu maaha min inzaalihi qur-aanka dejintiisa attilaawata allafdiyata, akrinta oo iska lafdiga ama ah. wahiya alqiraa'atu asaxiixatu, waa qiraa'ada saxiixada ah, allatii yakuunu alqaari'u fiiha, qaarigu ou ahaanaya iyo qiraa'ada dhexdeeda mutaxalliyan mid isku qurxinayo biajmali sifaati, sifaat midda ugu quruxda badan, wa ashrafi alkhisaali, qaybo midda ugu sharaf badan, tacdiiman lilaahi tacaala uu weyneynayo, wa ta'aduban maca kalaamihi uu kaga edab qaadanayo. fa ina hada midkaani wain kaana madluuban, madluubba ha ahaada, mid la raba ha ahaadee, laakin hunaaka waxaa jirto tilaawatun ayaa meeshan ah, akrin xukmiyatun, qiraa'o lafdiya iyo qiraa'o xukmiya. calayha madaaru sacaadati alcabdi, midaas ayaa marka uu ku wareegayaa qofka liibaantiisa, wa falaaxuhu liibaantiisa. ayb inahaa iyadu waxay tahay itibaacu lqur'aan, qur-aanka in la raaco. waqad dakara shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llah, waxa uu sheegay
ana lafda tilaawati marka la sheego idaa uطliqa haddii la iطlaaqo fii midli qowlihi tacaala aladiina aataynaahum اlkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi marka saa la dhaho tanaawaluu tilaawadaa waxay gaaraysaa alcamala bilqur'aan qur-aankoo lagu camal falo kamaa warada can ibni mascuud sida ibni mascuud ka soo aroortay radia allahu canhu annahu qaal waaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye ina xaqa tilaawatihi qur-aanka akhrintiisa xaqnimadeeda an yaxila xalaalahu qofku waa inuu xalaashado xalaashiisa an yuxila xalaalahu xalaashiisa inuu xalaaliyo yani ictiqaadiyo xalaalnimadeeda kuna qaatana wayuxarima xaraamahu xaaraamtiisana uu xarimo iska xarimo wayaqra'ahu ou aqriyo kamaa anzalahu llahu siduu alla u soo dejiyey walaa yuxarifa waanlaa yuxarifa waa inuunan doorinin alkelima kelmadda can mawaadicihi macnaheeda xaqaa waa inuusan ka doorin xalaashiisa waa inuu qaato xaaraantiisa ka fogaado waxyaalaha xaaraantuu sheegayo ou ictiqaadiyo inay xaaraayin ka dheeraado sidii alla u soo dejiyey inuu u akriyo walaa yuxarif alkelima can mawaadicihina aayadda siday ahayd maayo si kale waa inuuna u fasirin meeshaan marka dadku hadda dhib weyn waayaba dadkii yacni waxaa ka baxsan waaye qur-aanka macaanidiisa waxaad arkaysaa nin cilmi u leh nin yacni cilmi waxaan ujeedaa nin yacni cilmiga raacraaco iyo midaan cilmiga raacraacinba weligiisba waxba aan raacraacinba kulligood waxaad arkaysaa qur-aankii bay wax ka sheegayaan qur-aankii bay isku dayayaan inay macnihiisa sheegaan aayad buu iska akrinaa wuxuu leeyahay aayaddan saasay leedahay ilaahay saas sooma dhihin uu leeyahay weligiisna meel tafsiir lagu haayo aaladii iyo culumtii muqadamaadka tafsiir ay midna ma yaqaan dad badanoo iyaguna masaajidda yimaado waxuun iska dhegedhegeeyo cilmi dhagood waxoodu iska yihiinna ayagu culumay isku qaateen waxaa laga yaabaa marka qur-aankii meel maxmalkiisii aan ahayn inay dhigaan waqtigii hore saxaabadana waa dhacday waxaanoo kale oo saxaabatu rasuulilah oo joogaan ayaa waxaa la arkay dad qur-aankii meelshii ou lahaa meelaan ahayn dhigaayo khawaarijta nebigu sal l slam markuu tilmaamayo wuxuu yidhi yaqra'uuna min khayri qowli lbariya qur-aankay akrinayaan dadka waxay akriyaanay ku qowlaan qur-aanka ugu weyn soo maha ugu khayr badan kaasay akrinayaan laakiin booskiisii ma dhigayaan cali radiallahu canhu bay waxay kula doodeen oo yidhaahdeen markay heshiiska uu ogolaaday oo gartiisii uu dad u dhiibtay isaga iyo mucaawiya ay u dhiibteen abuu muusa alashcari iyo raggii kale ay u dhiibteen ayay waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilah sow ilaahay ma dhihina ilaahay unbaa xaakim dad see xaakim uga dhigatay waa waxaas kufri waaye dheheen aayaddii ugu horreysay ku dhumeenay ahayd oo macnaheedana ay qaldeen markaasuu cali radiallahu canhu wuxuu ku yidhi ilaahay ka warrama wuxuu leeyahay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ka warrama ilaahay wuxuu leeyahay buu yidhi nin iyo naag hadday isdagaalaan isqaba xakam u sameeya gartooda dad u dhiiba yaa daranuu yidhi muslimiinta dhiigooda iyo nin iyo naag gartooda xallinayo markaasuu wuxuu yidhi kitaabkiibuu meel dhigay markaasuu wuxuu yidhi kitaabow xukun waayahay kitaabkii wax ma xukumi karo waa ilaa yacni in qof fuliyaa ou jiro haddana ma qaadanayo waxaas oo dhan dadka intay waxay samay jireen intay dilaan naagaha uur kale xataa caloosha ay ka dooxaan saxaabiga cabdullahi bn alkhabaab naagtiisa uur le bay dooxaan cunugiina waa kasoo rideen waa kasoo saareen iyadana waa dileen cunugan muxuu dembiyo galayaa layidhi u geystay markaasi waxay yidhaahdeen ilaahay sooma dhihin walaa yeliduu ilaa faajiran kafaaran marka waxaasoo kale marka haddii qur-aankii laga dhigto oo qofku uu iska sheego ee uunan ula laabanin meelihii yacni loola laaban lahaa iyo meeshii yacni manbaca qur-aanka yacni masaadirtii tafsiirkii saxda uunan ula laabanin khataraa lagu dhacaan ibnu jariir itabari aayadaha tafsiirka uu fasirayo qaarkood waxaad arkay mararka qaar isagoo dhahayo aayaddan sidaan carabiyada wej waa ku leedahay waa la dhihi karaa wej ahaan luqa ahaan laakiin aniga ma banaysanayo uu leeyahay inaan dhaho maxaa yeelay tafsiirku waa ahar iyo naqli buu leeyahay cid iiga horreysana ma haayo saan ku fasirtay laakiin luqatan waa dhici kartaa waa ka joogsana
waa ibnu jariir abari ibnu jariir waa huwa ibnu jariir tafsiir aan looga horreynin ma raba inuu gala annagana waxaad moodaa marka waa laysaga degdegaan allahu mustacaan dembi marka inta kalea qofka uga badan taxriif inuu galo qatar qur-aanka macnihiisa in layska bedbedelo sidii la raba laga yeelay ayb maalin walbaa dadka qaarkoodna maalin walbaa ninkii madaxoo yimaado ayay aayadaha tafsiir uga sameeyaan say wax uga raaraadsadaan waxaasna ma la raba walaa yuxarifa waanlaa yuxarifa waa inuunan bedelin can mawaadicihi walaa yata'awala minhu shay-an calaa gayri ta'wiilihi walaa yata'awala waa inuunan u fasirin minhu xaal uu qur-aanka ka mid yahay shay-an wax calaa gayri ta'wiilihi ta'wiilkiisii saxdaa waxaan ahayn yacni tafsiirkiisii saxda ahaa wacan mujaahidin raximahu llah anahu qaal yatluunahu xaqa tilaawatihi yatabicuunahu raacayaan xaqa itibaacihi wacalaa hada daraja salafu salafku sidaasay qaadeen dariiqaas min hadihi lummati ummaddan salafkoodii ahaa fatacallamuu lqur'aana qur-aankii bay barteen wasadaquu bihi way rumeeyeen wa camiluu bihi way ku camal faleen fii kulli sha'nin min shu'uuni xayaatihim sha'ni kastoo noloshooda ka mida waqad akhraja ibnu jariirin bisanadihi can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal kaana arajulu mina ninka annaga naga mida wuxuu ahaa idaa tacallama 10 aayaatin 10 aayadood marku barto lam yujaawizhunna ma dhaafi jirin xataa yacrifa macaaniyahunna ilaa macaanidooda ou garto waalcamala bihinna iyo ku camal falkooda iyaga waqtigooda qur-aanka waana soo degaaya ogow carabna waa ahaayeen iyaga macaanida waqti wax badan kama qaadanaynin nebigana waa ag joogeen sal slam laakiin annaga haddii la yidhaha qofka tafsiirka ha barto cunuga yarkaa tafsiirkana ha barto waxay noqonaya aaladii uu ku bara lahay weli ma yaqaano naxwadii iyo sarfigii iyo adabkii iyo goormaa marka qur-aankii ma socon kara marka ilmaha dadka yareere dhalinyarada iyaga marka qur-aanka in loo bilaabo oo loo dhameeyo halmar markay xifdiyaan kabacdi culumtii qur-aanka ay ku baran lahay wamiluhu qaala abu cabdiraxmaan assulamiy wahuwa min kibaari الtaabiciina raximahu اllah waqad warada hawaabu اljaziil hawaab weyn baa ku soo aroortay liman itabaca alqur'aana qofkii qur-aanka raacay wacamila bima fiihi ku camal falay waxa ku dhex jiro ayb wlciqaaba ciqaab ayaa soo waqad warada hawaabu اljaziilu liman itabaca alqur'aana wacamila bima fiihi waalciqaabu alcadiimu ayaa soo aroortay liman acrada canhu qaala tacaala qaala hbiطaa minha jamiica bacdukum libacdin caduw aadam iyo xawaa baa ilaahay ka hadlaa waxa uu yidhi alla wuxuu ku yidhi dega jannadii ka hoobta idinkoo dhan bacdukum libacdin caduw idinkoo qaarkiin qaarka kale uu cadow u yahay oo iscollaysanaysaan faimaa ya'tiyannakum minii hudaa haddii xaggayga hanuun ou idinkaga yimaado faman itabaca hudaaya hanuunkayga qofkii raaco falaa yadilu ma dhumaayo walaa yashqaa mana nasiib darsanaayo ma dhur darsanaayo waman acrada can dikrii dikrigayga qofka ka jeestana faina lahu maciishatan dankaa nolol ciriiri abaa u sugnaatay uu leeyahay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qiyaamahana isagoo arag la ayaan soo xashrinaynaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa rabbiyow waxa uu leeyahay maxaad iisoo xashrisay indhoola anoo ah waqad kuntu basiiraa waxaan ahaa adduunyada mid araggiisa qabo qaala kadalika atadka aayaatunaa aayadaheennii baa kuu yimaadeen sidaadaas oo kale fanasiitahaa waad ka tagtay wakadalika alyowma tunsaa adigana maanta sidaadaas oo kale ayaa lagaaga tegayaa wakadalika najzii man asrafa sidaadaasoo kale aan ku abaalmarinaynaa qofkii xadgudbo walam yu'min biaayaati rabbih rabbigii aayaadkiina aan rumaynin walacadaabu alaakhirati ashaddu abqaa cadaabka aakhira darnaan badan haritaan badan facalaa qaari'i lqur'aani qaari'i lqur'aanka waxaamilihi iyo ninka xambaarsan an yattaqiya allaha inuu ilaahay ka cabsado waa fii nafsihi uga cabsado inuu akhriyo waa laga rabaa habeenkii inuu ku tukado waa laga rabaa inuu ku camal falo waa laga rabaa yacni ninkii ilaahay qur-aan baray isagana mas-uuliyad waa saarantahay ogow isagu waxa uu haystana wax lamida male nin isaga waxaasoo kale haystaiyo ka badan unbaa dhexdheer ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim nebiga waxaa loogu manno sheegtay qur-aanka in la siiyey kadib maxaa la yidhina walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi dadkan adduunyada aan ugu raaxayna indhahaaga ha u taagin
adiga qur-aanaa lagu siiyey iyaga adduunya haddii la siiyey indhaha ha u taagin ha jalleecin iyaga saasuu ilaahay leeyahy subxana wa tacaala culammada marka waxay yidhahdeen nin kastoo ilaahay qur-aanka baray oo laabtiisa qur-aanka uu ku shubay macaanidiisii uu baray haddii uu u hanqal taago nin adduunye ka badan ninkaasi qur-aanka waa yasay ogow waana yaraysay maanta dadkii qur-aanka xafiday mushkilada laga la-yahay waxay tahay war ilaahay wax fiicanuu idin siiyey dadka bara ummadda meel weynaad u joogtaan hadday dadku iyagu fahmaynin waxaas laakiin idinka ilaahay agtiisana mansilaad ka joogtaan idinka qur-aankaas ku dhowrsada ilaahay uga cabsada ha ka dhiganina wax yacnii kis yaron wax lagu cuno bis ha ka dhiganina haddii ilaahay wax kugu siiyo khayr oo ilaahay wax kugu siiyo khayr waa iska wax markaa yacnii uun sabab iyo waxyaabaha waxa lagu rabo kan yacnii dambe midda dambea weynin badan ayb marka dadka qur-aanka iyaga saasaa laga rabaa hadday dadku ugu damac bataan ayaga oo ay ugu adduunyo jeclaadaan oo qofkan war cunugan yarkaa qur-aanka bar wax ma haystee aabbihiis waa dhintay maya ma baraayo hadduu leeyahay lacagtiisa keen lacag uun baan aqaanaa hadduu leeyahay dhib waa haystaa isagana ogo ninkii wax haystana wax ka qaado kii kalena iska daa sadaqayso qur-aanka ayb allah mustacaan qur-aankii waxaad moodaa marka tajwiidkii iyo wixii qur-aankaa inay markaa nin walbaa marka shaqo yaroo adduunya ka raadsanaa shaqadaas adduunyadaasa u daran bes kii la yidhaahdana wax ku hela xataa kororsi unbuu sii rabaa dadka waagii hore waxay ahaan jireen dadka ahlulqur-aanka ashadu nnaas ay ahayd dadka kuwa ugu zuhdi badanay ahaan jireen qur-aanka marka macallimiinta kitaabkan tibyaanka inta aada u akhriyaan ha ku camal falaan ayb markaa wuxuu yidhi facalىa qaari'i اlqur'aani waxaamilihi an yataqiya allaha fii nafsihi waan yukhlisa fii qiraa'atihi wayacmala bihi ou ku camal falo waan yaxdara min mukhaalafati اlqur'an inuu ka digtoonaado waاlicraadi can axkaamihi wa aadaabihi qur-aanka axkaamtiisa iyo aadaabtiisa inuu ka jeesto waa inuu iska ilaaliyo lianlaa yalxaqahu si aynan u haleelin min addamni eedaynta xaggeeda maa laxiqa alyahuuda yahuud wixii haleelay aladiina qaala allahu fiihim alla uu ka yidhi mathalu aladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali ilximaari yaxmilu asfaara allaahuma arsuqnaa tilaawata kitaabika ilaahu kitaabkaaga akhrintiisa nagu arsuq cala alwajhi aladii yurdiika cannaa wejka xaggeenna kaa raalli garaynayo inaan ku akrino wajcalnaa yaa ilaahanaa miman yuxillu xalaalahu ilaahu waxaad naga dhigtaa midka xalaalaynaya xalaashiisa wayuxarimu xaraamahu wayacmalu bimuxkamihi muxkamkiisa ku camal falaayo wayu'minu